munaasabadu waxay ku saabsan tahay siirada nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo caalamku sida uu ahaa nabiga ka hor iyo nabiga sallallahu alayhi wasallam sida uu caalamku u bedelay iyo quraanka sida uu tilmaamay ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka wuxuu ku yiri fi nihayati surati tawba laqad ja'akum rasulun min anfusikum waxa idin imaaday rasuul idin ka tirsan idinka bimaana idin ka tirsan waxay tahay yaani malag oo idin ka duwan abuuritaanka ama nooc kale oo khalqiga ilaahay kamid ah oo rasuul idin ka soo dheemeehay waa rasuul aad taqaanaan oo idinka idin ka tirsan oo aabihi iyo hooyadii aad taqaanaan qor inama ana basharun mithlukum yuha ilayya marka waxa idin imaaday rasuul oo idinka idin ka tirsan tilmaamaha uu leeyahay waxa kamid ah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum yaani waxa idin dhibaaya ayaa oo idinka mashaqaydun ku ah nabi aad u dhibsanaaya ayaa idin imaaday waa tilmaanta koowaad oo nabi sallallahu alayhi wasallam lagu yaqaan oo ah in dadka ama bulshada dhibaatada haysata inuu ka dalqado oo yaani in loo xalliyo oo jeclaan laha taas waa mid saddex labaad waa xariisun calaykum bil mu'miniin wuxuu aad ugu dadaalaa wixii maslaxadiina ay ku jirto hadaad mu'miniintiin wuu idin ku dadaalaa dadka aan mu'minka ahayna wuxuu la jeclaay inay soo islaamaan ilaa quraanku uu ka tilmaamo nabigu inuu ku dhawaaday naftiisa inuu khatar geliyo oo leeyahay falacallaka baaqixun nafsaka ala aatharihim in lam yu'minu bi hadha alhadith asafa iyo midka kale ah raufun yaani bil mu'miniin raufur rahim wa naxariis badayaan naxariistiisa badan waxa kamid ahayd yaani muuqaal kasta oo nolosha kamid ah naxariis ayaa ka muuqanaysa hatta salaada marka qaar kood salaada inuu galo oo uu rabo salaada inuu dheereeyo ayaa wuxuu maqlaa ilmo yar oo ooynaaya marka salaadii soo gaabinaya asaga oo u turaaya hooyadii inay maqasho cunugaas oo salaadii ay ka waswaasto sidaas wuxuu loo yiri qofkii salaada imaam dadka u noqda salaada u fuudeeyo u soo gaabiyo maxaa yeelay waxa ku jira qof xanuunsan qof dan u saaxiiba intaas oo waxay ku tusaysaa inay saas ay tahay midda kale waxa soo qaadan aayad kale oo ah nabiga sallallahu alayhi wasallam imaashiisa inuu nicmo u ahaa adduunka oo dhan laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim ilaahay wuxuu mu'miniinta ku nicmaystay oo nicmo u siiyay nabiga markuu soo saaray bimaana haddii nabiga la soo saari lahayn quraankan aan akhrisanayno iimaanka ilaahay aan rumaysanahay wadada cad ay noo muuqato adduunka xaqiiqadiisa inaan fahamsanahay aakhira aan rumaysanahay adduun iyo aakhira ay noo halaagayso sidaas haddaan u raacno ma aynan garaneen meel ay naga jirin ma aynan fahmeen wa innaka latahdi ila siraatin mustaqim siraati llahi alladhi lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard nabiga dadku waxa ugu yeeraysaa wadadii ilaahay marka wadadii ilaahay nabigaas dadku ugu yeeraya soo bixinta ilaahay uu soo bixiyay saas ay noo ahayd intaas kadib waxaan kala soo qaadanaynay bisha markay dhalato rabiul awwalka ummadana Soomaalida culimadeena hore khayr Allah siiyay si ay u tacliimiyaan dadka oo ay diinta ugu tacliimiyaan bilihii carabiga ahaa ayaa bil walba munaasabada ku jirta ayay ugu magac dareen sanadka bilowgiisa marka la joogo oo sanadka hijriga ah bilowgiisa marka la joogo bisha ugu horeysa waxa la yiraahdaa muharram bisha ku xigta waxa la yiraahdaa safar bisha saddexaad hadda aynu ku jirno waxa la yiraahdaa rabiul awwal sidaasay carabi saas ku yahay rabiul thani jamaadul awwal jamaadul thani rajab saas ugu socda Soomaalideena magacyo waxay leedahay maxalli ah ama local ah oo bilahaasi si dadka loogu xiro munaasabada ku dhex jirta loogu magac daray bisha koowaad markii la joogo bishaan ku jirnaa markii la waxay dhahay waxaan joognaa bishii zakada bil zakaa bilatay bil zako maxay ku tusaysaa ummadaha marka taariikhdooda la baaraayo dhaqamadooda iyo turaadkooda iyo waxa yani taariikhaan ay u lahaan jireen waxa lagu ogaadaa dadkaas waxay ahaayeen bimaana waxay dhisan jireen hadallada ay ku hadli jireen يعني سي u noolaan jireen waxay cadeynaysaa dadkani waxa ay yihiin saasaadeed markii midalan aad maqasho bishii zakaa ayaa bilatay oo dhaqan ahaan Soomaalida ay bisha zakaa ugu bixiyeen maxaa ku soo baxaya dad zakaa bixinaya macnaheedu inay yihiin dad muslima oo hadii ay zakaa bixinaynin bisha koobaad ee sanadka wareegiisa ma ay zakaa u bixiyeen muslim ay ahaayeen markay zakaa u bixiyeen si dadka xoolaha haystay ay bisha uga dhumin oo mar walba xusuustaan bisha lagu jira zako markay wada ku baato zakadii way iska bixinayaan way soo wada markay rabiul awwal soo gaaray ayaa waxay u bixiyeen bisha rabiul awwal bishii mawlidka bishii dhalashada nabiga u bixiyeen taas maxay tahay marka siirada loo akhrinaya caruurtii maxaadaro loo qabanaya waxa la siinaya waxyaabo macaan oo lagu jeclaysiinaya munaasabada iyo arrimaha ayada bishii mawlidka loo bixiyay marka bishaan ku jirna hadii la qofka jidka iska maraya ku dhahay wala inuu rabiul awwal dadka ama iskoolada ama jaamacadaha wax ku qorto rabiul awwal loo qoro moogi
dadweynaha caadiga banaanka iska maraya bishii mawliidka lagu jiray ay yaqaanaan marka dadkii u bixiyay bisha mawliidka ee hore ee Soomaalida ah waxay ku tusaysaa inay ahaayeen dad siirada dadka u dhiga bisha markii la gaaro dadka bara inay tahay bishan inay tahay saas marka in bisha si gaar ah loo sheego marka nabiga sallallahu alayhi wasallam maalinta isniinta markuu soomay waxay maxay u soontaa wuxuu waa maalinta aan dhashay yawma walitu fi waa maalinta aan dhashay marka maalinta uu dhashay iyo bisha uu dhashay calaamad waxay u tahay taariikhdiisa laana quraanku wuxuu looga sheekeeyay nabiyada ilaahi suuratul an'am ilaahi 18 nabi ayaa la isdaba dhigay وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالم انت أمرك الآخرين وعليني أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي كواس رسول الشيء من عدد الكيسان وكو إله نونيه كوا صرت كدايو سورة مريم وحلقة شيكي انت واذكر لي الآخرين واذكر في الكتاب مريم واذكر في الكتاب إبراهيم واذكر في الكتاب إسماعيل واذكر في الكتاب إدريس واذكر في الكتاب موسى يعني واذكر معناه العلوية هاي وحسن حالي في صومال حسن وكشاكي دكتور حلقة بين كلمة انت يعني الله معناه يمين بين السكة الوقاتين حسن معناه يسمع دكتور قارة وحيسوق الضايم إنه لم يعيد الله هاي مولدك عيد سدحات مياه ما عيد سدحات معه أو حواي وذكرى مولدي ذكرى معنا ذكرى وحستان نبي عديل لها واذكر حس في الكتاب وحاد حستان مريم يا نبي عيسى قال شيء تكسر كالي مركز إذ انتبه من أهل مكانا شرقيا فاتخذ من دونهم حجابا فأرسلنا إليه روحنا هذا لو حال مركز النبي عيسى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا ورفعناه مكان عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم مركز حسكو وتاريخ كشاكين تاريخ مركز لغا شاكين الله برتنا قف وحي لبر وكديدا لكن دي شبل اسكي يراهدو كو اذا عدها ايداد حييسين waxay dhahan hadaad badeeca keento oo bakhaar shuk ku siiso oo cid aad u sheegin dadku ma ku riyooni inaad alaab keento hadaan loo sheegin mana hadaan dadkii wax looga sheekayno dadku say ku raaci oo say ku ogaano soo looga sheekeeyo ma kaana rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam akram an-naas khalaqan wa khuluqa nabigu saasu aha arda'atu halimatu saadiya zaani saasu yani waa laga sheekeynaya siirada laga sheekeynaya way jeclaanay marka bisha markay inoo soo gasho yeyna noqonin bishii khilaafka ee ha noqoto bishii isjacaylka baxay nabi sallallahu alayhi wasallam isjacayl ayuu inoo la imaaday kulliga Soomaali hadaan nahayna bal mid u weydii ruux aan nabiga jeclayn inuu ma jiro kii gaaloobay asaga waa gaar mugtay kaas ma tirsanay inaga qof gaaloobay oo muslim baahin ka asaga shaqo kuma leeyahay laakiin qof muslim ah bal weydii adiga nabiga ma jeceshahay allahumma salli wa sallam alayhi kala soo boodaya ruux aan jeclayn male maxaan isku haysanaa marka jacaylka habka loo muujinaayo yaa ku kala duwanahay marka nin walba waxa leeyahay nabiyow nin walba afkiisa kugu amaan Sooma marka hadii nabiga sallallahu alayhi wasallam aad soo jeclaato adigu walaalka kalena uu si kale u jeclaado jacaylkuna ogaada waa wax gudaha ka soo go'aya asxaabta ridwaanu alayhi maalintii badr dagaalka la galay yaa nabiga oo safka toosinaya yaani wuxuu arkay hor u soo yara baxsan safka ul yaro uu haystay oo safka uu ku simaayo gadaal intuu ugu riixay yaa wuxuu ku istawi yaa sawaado istoosi safka gal markaas wuxuu aw jactani ya rasuulallah rasuulka ilaahay waa xanuujisay oo shay igu durtay waa xanuujisay aan ka gudto aan ka qisaasto ilaahay xaq iyo wuxuu kula soo diray cadaalad saabtu way yaabeen manaba ilaahay baa laga gudan karaa laga qisaasan karaa wuxuu yiri waxaan rabaa inaan ka gudto nabiga uu makani naftiisa wuxuu iga gudso markaas wuxuu markaa aniga oo shay igu duraysay oo dib u noqay dhaysay calooshayda meesha iga taabsiisay mara ma saarnayn adna marada iska qaad maradaada oo calooshaada oo bannaan aan rabaa inaan ku duro dadkii way yaabeen qofkaas wuxuu aan miga gudsatido nabiga inta iska dhaafto maxay adiga waxa ugu fateen aniga nabiga ku gudsana nabigu u bani calooshiisa intuu isku duubay oo uu dhunkaday yaa wuxuu rasuulka intaan baarabi wuxuu maxaa ku xambaaray inaad saas yeesho wuxuu dagaal hadda galeynaa waxa la noqon doona lama ogo haday tii rabbi ii timaado oo dagaalka inaan ku dhintaa noqoto waxaan rabaa jirkayga iyo jirkaaga oo ugu dambaystii istaabtay inay tii rabbi ii timaado
markaas nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu qofkii raba ahlu janna inuu arko ninkan ha arko ha fiiriyo jacaylku nabi sallallahu alayhi wasallam maalin nabi sallallahu alayhi wasallam intuu istoobay oo dhiig iska keenay yuu saxaabi u dhigay wuxuu bax soo astur xagga loo kala wareegtay si sharaba amal wuu asturay markuu imaaday waxay soo asturtay hawaan soo asturay wuu fahmay marka xageed ku soo asturtay meel aan weliga deegaarkeena ku soo asturay nabi sallallahu alayhi wasallam qofkii raba ahlu janna inuu arko ninkan ha fiiriyo macnaha maxabada nabi sallallahu alayhi wasallam ee jacaylkiisa marka yaani jacaylka nabigu waa wax wujdaani oo gudaha ummadana wada jecesha maanta waxaynu joognaa marka caalam nabigeena saa u jecelayn intii karkatar laga sameeyo oo suurax loo sameeyo sida midna faransiiska oo kale oo ka dhacaysay macallin kuleen macallin ma muxuu macallinka yahay macallin waa midka ardaydiisa waxyaabaha ay rumaysan yihiin ilaaliya laakiin macallin aan shucuurka dadka ilaalinaynin wuxuu yidhi inta muslimiinta ah waxaan rabaa inaan tuso ardayda aan muslimka ahayn suuradii nabi maxamed aan tusaayaaye inta muslimka iska baxeen kuwan aan tusaayaaye oo maxaa u tusaa kuwan aad ka rabtaa inuu wuxuu rabaa fool xumeeyo oo suurad fool xun inuu ku sameeyo taas waxba kagama qaadayaan ilaahay baa kaga filan innaa kafaynaaka almustahzi'iin ilaahay baa yidhi kuwa kugu jeesjeesay ilaahay baa kaaga filan nabiyow ama nabigu marka ha joogo ama ha dhinto ilaahay ayaa kaga filan nabiga ayaa ilaahay baa karaameeyey ilaahay baa jecel innaa kafaynaaka almustahzi'iin kuwii baan tusaaya buu yidhi sidaad maqasheenu wiil yaroo dhalinyaro ah oo shiishaani ah ayaa dilay kii oo nabiga kartoonkiisa keenaya markaas waxay ku leeyihin muxuu u dilay wuxuu ka soo jeedaa wiilkaas yarka ah xuquuqda qofku inuu ra'yigiisa muujisan karo nabi dad ay rumaysan yihiin nabigood inuu yahay in la caayo miyaa ra'yi la muujinayaa waa nabi la caynaaye ma iska dayan ayagu sooma dhaha nabi ciisaan raacsannahay innaga muslimiin haddaan nahay nabi ciise miyaan cayn karnaa ma cayn karna nabi ciise maxaa yeele nabi ciise nabi maxamed waa isku laba nabi innaga maba kala saaraynaba laa nufariqu bayna axadin min rusuli rususha ilahi oo dhan ambiya ilahi bay noo yihin ayagu ma yeelaayaan nabigeena markaa ka sheeg marka kuwaas oo cadowga ay noo joogo oo sidaas nabigu u caynaayo haddii dadkii cadowga ahaana ay saas yeelaayeen oo nabiga caynaayaan innagii muslimka ahaynna markii bisha la soo gaaro aan isku qabsanno mawliid ma la dhigaa mise ma la dhigaayo beri aan bay noo jooga sheega idii sheegaa yaa dadkan oo maarkin oo dadkan waxaa dhihi jiray shaacir waxaa leedaha kuwa qiseeyo oo sheekeeyo ceelgaabta iyo yani ku yani qisooyin ay sheegaayaan dadkay kaga qosliyo wax saas ah marka mid shaacirkaas ah yaa mar oo 93 faransiiska waxay joogeen baydhabo ciidamadii waxay ku jireen caalam ka imaaday ee Soomaali barigaas joogay shaacirkaas ayaa meel dugsi quraan aan ku leenahay agteenu noo imaaday markaas wax galabtii meesha iska camirtaa dadku u sheekeeyaa lacag ka yar aruursada gabar iska lahayd marka dugsiga aan wax ku dhigno oo quraanka iyo tajwiidka aan ku barno yaa waxay tii iga leex meeshan iga fogee meelahaas kale la aad waxaan aad akhrinaysa anima ogolii anuu imaaday markaas wuxuu yiri ani markii aan dugsiga agtiisa imaaday oo aan arinta meesha ku sameeyay dariiqooyinkii aan saaxiibada ahayn waxay dhahan kaas ikhwaanu noqdayo nimankaas agtooda wax ku akhriyaan gabar meesha aan waxay leedahay dugsiga agtiisa iga dheerow ani markuu dhexdan ka bax afmaamayntu ka wuxuu yiri hadii haanaasnaha iburiyaan isigni iburiidaan maana faransiiska kabay hadday kuwaas yariyaan idinkana eridaan ani faransiis baan ku darsan wax geelaada marka waxaan ku keenay weeyow haddii faransiiskii nabigeena uu caynaayo innagana bishii mawliid marka la gaaro innaga dhexdeena isku khilaafayno nabiga arrimihiisii xaggeen aadaynaa macnaha marka maxaa la rabaa bishan inay noo noqoto bishii maxabada bishii is aruurinta bishii is jacaylka laana nabiga sallallahu alayhi wasallam jacaylkiisa waa wada jecelna laana qof aan nabi jeclaaninba muslimba ma aha wax kaan sax ma jiro salaada aan tukanayno adxiyaadkii waa in salliga lagu soo daro haddii xataa la geeriyoodo oo tacsiig qof aan ku tukanayno janaasada markaan faatixada akhrino nabigi ku xiga allahumma salli ala muhammad wa alihi salliyo haddii qofka la duugo oo qabriga la geliyo su'aalaha la weydiinayo markii ilaahay la weydiiyo kadib mar rabbuka markii la yiraahdo wama nabiyuka ku xigta marka ruuxu nabi diidan ma jireen farsamo kale ayna hayseen aan si tartiib ah intaan u hadalno aan jacaylkii nabiga aan jeclaanay innagana isku jeclaano laana suurtagal ma aha inaad ilaahayna jeclaato rasuulkiisana jeclaato intii ilaahay rasuulkiisa kula rumaysnayd ee walaalaha ahaan aad jeclaan weyso faransiiska ma aadeen marka xagee aaday adiga marka
marka waxaan rabaa muuminiintu inay iskaashtaan inay walaalo ahaadaan ayagu inay isjeclaadaan saasaa loo baahanyahay marka ilaahay subxaana wa tacala ummaddeena khayrka ha waafajiyo siirada iyo ka sheekaynteedana sabab ha inoogu noqoto inaan soo ceshanno cizzadii muslimiinta ay lahaan jireen laanna nabiga sal allahu alay wasalam xilli wuxuu imaaday bini aadamka oo dhan ay khatar ay ku sugan yihiin ilaahay baa ku badbaadiyey bini aadamka siiradiisii iyo jidkiisiina wuu inoo yaallaaye innagoo walaalaha soomaali oo muslima intaan tartiib u wada hadalno aan dhahno saas aan yeelno saas aan yeelno saas aan yeelno nabiguba saasuu yeelay kadibna aan waddankeenna suu nabad u noqon lahaa aan ka wada shaqayno cid aan wax ka suweynaysan jirin oo hadda ogtiino intaasoo sano unbaa dadkeenna kolba la isku diraa maalinba koox la isku diraa kooxbasaan la keenaa waa la isku rafaaday waddankeenniina dib u dhac ayuu taas ka qaaday